waxaad iga sheekaysaa riwaayaddii kuugu taariikhda badnayd ama kuugu saamaynta badnayd. wallaahi laba riwaayadood waa iloobi la'ahay, gaaraa bidhaan iyo shabeel naagood, labadaasba waa iloobi la'ahay. maxaad ku iloobi lahayd? waxaan ku iloobi la'ahay erayo ku jiray ayaa caloosha iga huriyay mar walbaba. maxaa ka mid ah? waxaa ka mid a marka aan af soomaaliga la qorinin oo aan rajaynayna xasan sheekh muumin wuxuu ugu talagalay markaas af soomaaliga allah u naxariista wuxuu ka sii sheekeeyey af soomaaligu inuu eragayagu oraahdiisu qaali tahay buu ka sheekeeyey iyada oo afafka kale lagu sheegi karin. markaas baan aniga oo masraxa aan joogo ayaa masraxa ayaan ninkii aanu isjeclayn baa Yurub aadahaya, naag cadaan ku baranaya, aniga markaas warqad inaan u diraan rabaa. warqadda waxa calooshayda iyo dareenkayga oo dhan Soomaali ayaan ku sheegi karaa. af gaalan af Talyaanina ima anfaco, af Carabina ima anfaco, af Ingiriisina ima anfaco, oo ugama bogan karo, afkayga kaliya uga bogan karaa. markaasaan gabay ayaan inaan tiriyo rabaya, markaasaan wax aan ugu diro oo gabayga ugu sheegana waa garan lahay. markii dambe waxaan xasuusanayaa record inuu jiro, markaasaan leeyahay oh my god record baa jiray, wallahi ilaahay gaalka record noo sameeyay, ilaahow ha cadaabin baan bas. markaasaan recordkii qaatay, masraxaan la seexseexanayaa, gabay baan tiriyey, marka dheer baan u tirinayaa ninkii aan isjeclayn. waxaa idhi halyeeyada dunida hanadkaan ka doortayo, halbowlaha dhiigga xibnahayga kale ku haga, laxadkaygaan isurindaayahayga haga, naftaydo halisa anigoonan hoos u dayin, adaa i hortaagan oo laabta kugu haya, habeen iyo maalin waan kugu hadaaqaya, hurdo ma seexdo ham iyo raaxa waan ka haray, hunguri ima luro biyuhu ima haraatiraan, hoorimaadkooda ayaa hanfi imaraa, dabbaa iga horreeyay halase aanan dhamac lahayn, haddaan kuu heli lahaa haatuf kuu warrama, halaan halmurtiya araartu qalbigu hollado, tixdaan ku hamiyo hanaankaan u oran lahaa, habaan u soo qoro waraaq haybad loo macaan, dhambaal heeriyeysanoo gees waliba ka helan, had iyo jeer boosta xaashaad ka heli layd, kuma halmaamina af soomaaliga ee hagraday. marka dhambaal heeriyeysanoo gees waliba ka helan waxa weeye waa DHL-ka oo aan waagaas xataa lagu fikirayn soona bixin. dhambaal heeriyeysanoo gees waliba ka helan, had iyo jeer boosta xaashaad ka heli layd, kuma halmaamina af soomaaliga ee hagraday. afkaagoo hodan oon haybad loo ku gabin, halleeyo qaada midaan hooyadaa ku barin, inay hadadaamo tahay waa midaan hubsaday, hees hadoodilan tilmaan hogatus loo irkaday, hadal kaloo lagu turjumo kaamaha qabtiraan, waxaad hahaabanayso hortaada yaal, haddaan laga harin mar un baa la halabsadaa. dee af soomaaliga markii dambe waa la gaadhay. habaryar mid kale waxaad iigu dartaa tii dabaylaha iyo dhulka dildilaacay iyo waxa weeye hees bay ahayd. aniga laafka hal beyd baan ka xasuustaa heesta, maxaa la yidhaahaa beydkii kaleeto waa nuushay. waxa weeye derbiyadan burburay iyo derbiyadan burburiya daarahani, derbiyadan hilaaci muxuu ahaa, derbiyadan walba burburay iyo daarahani burburay, adigu derbiyadan walba saas noqday daarahani burburaaye, siigadu dabooshow aawey dadkiinnii, madaad baa qaaday ma duufaan, ma duumaalaysa ma daacuun, garaadara naftayday dagalkini gaboobaa, jirku kuu damqanaya, ha ku daalin ha ku doodin, amarkaa da'weyne daawo hore u dhaaf. waagaas hadday taagan tahay, waa maanta taagan. derbiyadan dilaaciyo daarahani burburay weye. sanadku goormuu ahaa? wuxuu ahaa 71 toddobaatameyadii. yaa tiriyey gabayga waxaa tiriyey xasan sheekh muumin. waa riwaayaddii gaaraa bidhaan bay ku jirta, ali maxamed mooga aan isla dhigaynay. tii kaletana shabeel naagoodna way jirtay oo cajaa'ib iyaduna ah. shabeel naagood maxaad ku matalaysa? waxaan ku matalayay gabar la farxumeeyey oo qodbasireed lagu guursaday oo looga baxayay markii dambe, oo magaca dhanba ku soo baxaya shabeel naagood. shabeel naagood ninkaasaa i beleeyey, oo markaasaan waxaan leeyahay war meentaad i belayso oo bahdii aan ka dhashay barada iga saadhay oo labadeeda boqnood bilaaw ku goysay baad balanbalkaan iyo ciilka aad baddaad igu caay baa laygu ogaa, nafsi biiri ma raago ma baaqdo ma fogaado, kala dubi la dhaafa kaama beeri yaqaane, ilaahay biqiisa ku badbaadi naftaydo in adeero oo bareerin xumaanta. markaasuu leeyahay haddaa iga teg weyd beerkaan kaa tumaya. anigana hooyaday waxay iga sugaysaa ninkii xalaal buu igu guursadaa in haddaan kuu keenaya, qodbasireed buu igu guursada beena, markaasuu igaga baxay. markaasuu haddaadan iga ag dhaqaaqay waa ku garaacaya, sidii baana ooyey ka soo tegey. nafsi biiri ma raago ma baaqdo ma fogaado, yaa kol hadduu bila dhaafa kaama beyri yaqaane, ilaahay biqiisa ku badbaadi naftaydo in adeero oo bareerin xumaanta. markaasuu yidhi haddaad iga teg weyda beerkaan kaa tumaya. magaceed ku matalaysa adigu markaa? shallaaya. shallaaya ku matalaysa? shallaaya shamadi liibaan.
ninkan baa iyadoo duuban haya riwaayadii oo dhan iyo geeraaradii iyo kulli waxaa haya maxaa la yidhaahaa xataa internetka ka soo baxsan kadhaa shabeel naagood sheekadii iyo kulli annagoo isweydaarsanayna wixii oo dhan baa ku jira shabeel naagood baad qoraysaa un keliya aad mahadsan tahay adaa mudan maxaa intii aad xasan sheekh muumin la shaqaynaysay waxyaabo maxaad iiga sheegi kartaa xasan sheekh muumin wallaahi xasan sheekh muumin aan aad u jeclahay buu ahaa aabbahay buu ahaa ninkii isoo saaray buu ahaa xaqiiqatan marka waxa weeye markii uu xataa iswulan soo galay dadkii interviewgiisa sheegay anigaa laysoo weydiiyey aniga ilaa denmarkaan deganaa isaguna wasigii mu'alifkayga ahaa norway buu soo galay markuu soo galay anigaa interviewga laysoo waraystay ninkaan mataqaanaa waa mu'alifkayga baan idhi xasan sheekh muumin baa la yidhahaa riwaayad uu dhigay anaa markaas sidii uu sharciga ku qaatay oo lagu siiyey anaa u markhaati furay marka waa aabbahay buu ahaa aad baan uga xumaaday xataa dhimashadiisii iyo waxaasoo dhan annagoo aan weli is arkinin oo aan isla kulmin oo aan indhahaysa saarin buu dhintay I'm sorry aad baan uga xumaay aabbahay buu ahaa laakiin adduunka nin ka dabeecad wanaagsan oo ka macaan adduunka maba jirinba haddaan halkaa taa ku dhaafo haddeer markaan sheekaysiinaynay maxamed salaaman baad soo qaaday iyo heesihii nin dhex maray maxamed moogaad heestii haddeer sheegaysa isagoo qurbaha jooga ya oo gabadh cad guursaday maxay ahayd taas wallaahi heestaas waxay ahayd hees uu leeyahay caku naag madow cidlaa ka ron hees uu ii qaadayaa marka ma xasuusto wixii ma la wada xasuusan kara ma ogtaa laakiin hees kaleeto waxaa jidhay aan isla qaadayna uu leeyahay geeyadii jaraysani ma taqaan jikaarkee yaa jadiinkaagu raaxada mid jaahil ka abaa markaas anna aan leeyahay calool jilicsanaa wiilku mahal jeel ku raagtaa sidee johoradayda cayaar ugu jajabiyaa marka annagu haddaan dadka hore nahay wax oo sidee loogu qaaday heestaa adiga maxaa wuxuu dhahayay ku raagtaa maya bilowgeedii heesta bilowgeedii babaygii jamaamiyo camba jilib ku yaala ubixii janaale iyo jawharaad lamoodiyay buu leeyahay jirkaagaan udgoon baa isoo jiidanayo walba saas walba jirkaagaan udgoon baa isoo jiidanayo ubixii janaaliyo jawharaad lamoodiye jirkaaga udgoon baa isoo jiidanaye jeexaygii midige wadnahayga jeede isoo eg markaasaa leh calool jilicsanaa wiilku mahal jeel ku raagtaa sidee joohoradayda cayaar ugu jeejabiisa markaasuu leeyahay walba jidiinkaagu raaxada mid jaahilka ah sidii jiirka laa helay muxuuna uga jeeday maya beedka waa sheega kenyadii jaraysani mataqaan jikaarkii jadiimkaagu raaxada mid jaahilka ah muxuu uga jeeday dee wuxuu uga jeeda waxaanay bannaanka soo wada dhigeen oo haddeerto laysku caayo waxaas annagu waa qarin jirna wax walba anna waxaan leeyahay calool jilicsanaa wiilku mahal jeel ku raagtaa sidee johoradayda cayaar ugu jajabiyaa adoo uga jeeda anoo uga jeeda dee gabarnimadayda ma baabi'in karo isna uu leeyahay miyaadan weligaa wax arkin marka waxaasaan ku sheekaysan jirnay laakiin hadda bannaanka xumay noqotay aad baad mahadsantahay inkastoo aan gaboobo wixii oo dhan wa kala iloobay oo aan aad u xasuusan imikoon bay ugu qurux badan tahay arrintu marka aad sidaa uga hadlayso waxaan doonaynaa ardaydeena dugsiyada sare jaamacadaha inay waxan bartaan oo taariikhda fanaanka soomaaliyeed ay ka faa'iidaystaan